Xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya ayaa war ka soo saaray hadalkii ka soo yeeray Gudoomiyaha Gudiga Madaxa Bannaan ee Doorashooyinka Qaranka Xaliima Yarreey oo shaacisay nooca doorasho ee dalka ka dhici kara 2020-2021. Qoraal ka soo baxay Xafiiska Qaramada Midoobay ayaa loogu mahadceliyay Gudoomiyaha Gudiga Madaxa Bannaan ee Doorashooyinka Qaranka Xaliima Yarreey oo shalay soo bandhigtay farsamo lagu gaari karo doorasho toos ah oo ka dhacda dalka horraanta Maarso 2021 ama horraanta Agoosto 2021. Sidoo kale qoraalkan ka soo baxay Xafiiska Qaramada Midoobay ayaa loogu baaqay Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah inay si wadajir ah isugu yimaadaan kulan wada tashi ah si meesha looga saaro kala duwanaanshiyo ka yimaado hanaanka doorasho ee dalka ka dhici karo iyo weliba daadejinta doorashada soo socoto. Qaramada Midoobay xafiiskeeda Soomaaliya waxa ay uga mahadcelinaysaa Gudiga Doorashooyinka Qaranka, gaar ahaan Gudoomiyahooda Xaliime Ismaaciil, soo bandhigidda noocyada farsamo ee ku habboon Soomaaliya iyo weliba sida lagu gaari karo doorasho xor iyo xalaal ah, ayaa lagu yiri Xafiiska Qaramada Midoobay warka ka soo baxay. Waxayna Qaramada Midoobay intaasi ku dartay inay ugu baaqayso saamilayda siyaasadda, dowladda federaalka iyo weliba dowladaha xubnaha ka ah in wada ogol ay sameeyaan isla markaana ay isfahan ka gaaraan nooca doorasho iyo weliba habka loo mari karo. Hadalkan ka soo baxay Qaramada Midoobay ayaa ku soo aadayo iyadoo dhowaan Gudoomiyaha Gudiga Doorashooyinka Baarlamaanka Soomaaliya ay baarlamaanka hortiisa ka shaacisay inaysan suurtagal ahayn waqtigan inay dhacdo doorasho qof iyo cod ah sababo la xiriira tasjiilaadka iyo weliba sharciyadii oo aan dhammaystirnayn. Waxayna Xaliima Yarreey sheegtay in doorasho qof iyo cod ah ay u baahan tahay inay dalkan ka dhacdo muddo 13 bilood ah oo ka bilaabanaysa Julaay 2020 kuna eg Agoosto 2021, taas oo suurtagal ka dhigayso in la dhammaystiro dhammaan sharciyada iyo weliba habraacyada doorashada.